cabdiraxmaan cabdishakuur warsame wuxuu markiisii labaad sanadkan u tartami doonaa xilka madaxweynaha Soomaaliya. wuxuu doorashadii hore ku haray wareegga koowaad isagoo helay 9 cod. laakiin cabdiraxmaan cabdishakuur ka tartami doona 2021 iyo midkii tartama 2016 waxaa u dhaxeeya farqi weyn oo xagga bulshada ah sida ay dad badani qabaan. cabdiraxmaan cabdishakuur oo ku dhex jiray in ku dhow 30 musharax oo aan aad loo kala saari karin fahamkooda siyaasiga ah waxa ay aaminsan yihiin aragtida ay ka haystaan xalka Soomaaliya iyo meesha ay dalka u qaadi karaan ayaa tartamay 2016. laakiin hadda wuxuu tartami doonaa isagoo la og yahay waxa uu siyaasad ahaan aaminsan yahay dhabaha uu mari doona xalka Soomaaliya, maareyntiisa mushkiladaha gobolka iyo macnihiisa shakhsiga ah. doodihiisii tognaa 4 sano u dambeysay ayaa dad badan oo Soomaaliya ku riixaya inay dalbadaan in sanadkan cabdiraxmaan cabdishakuur fursad la siiyo. wuxuu ahaa ninkii ugu horreeyay ee ku dhiiraday inuu iftiimiyo qaladaadka dawladda madaxweyne Farmaajo oo ay xilligaas dad badan kala saari waayeen dhabteeda shaqo iyo dhalanteedkeeda. tan iyo xilligaas warsame wuxuu ahaa mucaaradka dhabta ah ee dawladda hadda jirta. markii la soo aruuriyo bandhigiisii 4 sano ee la soo dhaafay waxa ay dad badan sheegayaan inay jiraan arrimo badan oo sabab u ah inay Soomaaliya sanadkan tijaabiso hoggaanka cabdiraxmaan cabdishakuur warsame. wuxuu qodbooyinkiisii sanadihii la soo dhaafay ku xoojiyay in aanay dawladda hadda jirta ku guuleysan karin habka ay u wajahaysa maamul goboleedyada, amniga dalka, dib u heshiisiinta beelaha, fidinta maamulka iyo maareynta hay'adaha dawladda ee heer federaal. 7 arrimood ee aan soo aruurinay waxa ay ka mid yihiin waxyaabaha ay dad badan aaminsan yihiin inay Soomaalida ku qasbayso inay sanadkan tijaabiyaan cabdiraxmaan cabdishakuur warsame maadaama inta badan la aaminsan yahay inuu sanadkan dhici doono isbedel maamul. qodobadani waxa ay kala yihiin: 1. dadka Soomaalida waxay si weyn u diidan yihiin in awoodda dalku hal gacan gasho taasoo loo arko wixii qaranjabka keenay. madaxweyne Farmaajo waxaa lagu eedeeyaa inuu isku dayo arrintaas, balse gunaanadkii wuxuu sheegay inuu ka baqay inuu dalku kala tago. warsame wuxuu dhowr jeer si aan gambasho lahayn u sheegay in aanu xalka Soomaaliya ku jirin in awoodda iyo adeegga dawladnimadu hal gacan ku aruurto. 2. dastuurka qabyada ee Soomaaliya oo ay labadii dawladood ee ugu dambeysaba ku fashilmeen inay dhameystiraan ayaa dad badani xoojinayaan in intii sayar ee qoran lagu dhaqmo. dadka fikirkaasi xoojinaya waxay cabdiraxmaan cabdishakuur ka dhaxarkaan inuu yahay xeeryaqaan raba inuu dastuurka qoran dabaqo. 3. Soomaaliya ayaa kala hari weysay qaran ahaan 1991 oo hal mar wada burburtay maadaama ciidankii dawladda ee lagu fakan lahaa ay siyaasadda ku biireen. in ciidanku awood gaar ah noqdaan oo ay ka madax bannaanaadaan loolanka siyaasadda oo aan la isticmaalin waa baaq weyn oo dhinac walba ka yaala Soomaaliya. warsame waxaa loo arkaa nin kala guri kara ciidanka iyo siyaasadda oo u jeehin kara askarta shaqadooda ah inay soo afjaraan al-shabaab iyo inay amniga kala wareegaan ciidanka AMISOM. 4. sida loo fidinayo hannaanka federaalka ah ee ay qaadatay Soomaaliya waa mid ay siyaasiyiin badan ku kala aragti duwan yihiin. cabdiraxmaan cabdishakuur wuxuu dhowr jeer dul istaagay in federaalka loo adeegsado si togan oo adeegyada muhiimka loo dhaweeyo gobolada oo aan wax walba lagu xujeynin inay caasimadda u yimaadaan, taas oo ka mid ah waxyaabaha uu dad badani ku soo jiitay. 5. dhowrkii dawladood ee isaga dambeysay Soomaaliya waxay xoogga saareen dib u heshiisiinta beelaha, laakiin khilaafka iyo dagaalka dadka Soomaalida dhex yaala kama bilaaban ceelal iyo daaqsin ee wuxuu salka ku hayaa kana bilowday loolanka awoodda siyaasadda iyo maamulka dalka. cabdiraxmaan cabdishakuur wuxuu dhowr mar carabaabay inay muhiim tahay in marka hore laga heshiiyo loolanka awoodaha siyaasadda taasoo irdaha u furi doonta dib u heshiisiinta abagal ah. dad badan oo macno leh ayaa iyaguna fikirkaasi qaba oo dareensan in marka hore loo heshiiyo siyaasad ahaan inta aan loo gudbin waxyaabaha kale. 6. tan iyo markii ay timid dawladda madaxweyne Farmaajo siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa u muuqatay mid dheelinaysa. Soomaaliya ayaa lumisay xiriirka Sacuudiga, Masar, Imaaraadka iyo Kenya. xiriirka Turkiga ayaa isna sidoo kale ciriiri galay, waxaana kaloo jilbaha dhulka loogu dhuftay Djibouti oo la soo nooleeyay cadawgeeda Eritrea. beddelka wadamadaasi Soomaaliya waxay qaadatay wadamada Qatar, Eritrea iyo Ethiopia. dad badan oo Soomaaliyeed ayaa dawladda madaxweyne Farmaajo ku dhaleeceeyay dalalka ay tuurtay iyo kuwa ay ku bedelatay maadaama dalalka cilaaqaadkooda la xumeeyay yihiin dalal wax weyn ugu fadhiyay dadka Soomaalida ah taariikh ahaanna ee wax badan oo ganacsi ah iyo caawimaad kala dhaxeeyeen. cabdiraxmaan cabdishakuur warsame
waa siyaasiga qura ee caddeeya mowqifkiisa xiisadda khaliijka oo sheegay inaanay qadar qaadi karin Soomaaliya oo ay muhiim tahay in lala macaamilo dalalka iswata ee Sacuudiga, Masar, Imaaraadka iyo Bahrain kuwaas oo ay Soomaalidu weligeed la lahayd xiriir ganacsi, mid siyaasadeed iyo mid bulsho. siyaasiyiinta kale ee mucaaradku waa ka gaabsadeen inay caddeeyaan mowqifkooda xiisadda khaliijka. 7. Soomaaliya waxaa madaxweynayaal ka noqonaya waqti dheer siyaasiyiin aan la aqoonin biyadhacooda siyaasadeed, dadka aan u sheegi karin siday wax u maamuli doonaan ama u maamuli karaan, aanan soo bandhigin nooca Soomaaliyada ay rabaan inay dhisaan oo dhuumaalaysi ku jira ilaa iyo ay filla Soomaaliya ka qabsadaan. Sanadkan waxaa jira baraarug weyn. dadku waxay sheegayaan inay u baahan yihiin siyaasi ay caddahay siyaasaddiisu. haddii halkaasi la aado, Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame waa siyaasiga koowaad ee la yaqaano waxa uu rabo iyo waxa uu diidan yahay, mar walba sheega nooca Soomaaliyada uu rabo inuu dhiso, welina ay ka muuqato inuu diyaar u yahay inuu dadweynaha kala doodo meesha uu qaranka geyn doono haddii la doorto. 7daas qodob ay dad badan oo Soomaali u arkaan inay tahay waxa qasbaya in sanadkan fursad la siiyo oo la tijaabiyo siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame. maxay kula tahay adiga? ma aaminsan tahay in qodobadan iyo kuwa kaleba ay yihiin kuwa qasbaya in Cabdiraxmaan Cabdishakuur la tijaabiyo sanadkan? fikirkaagu waa muhiim.